waxaan maanta jecelahay inaan dadweynuhu ka hadalno arrimo kooban oo aan ka soo qaadi doono waxyaabaha xusuusta leh aan ku xusuusan doono banaanbaxyadii dhacay markii la doortay madaxweynaheena iyo sidoo kale isbedelkii dalka ka dhacay waxa uu horseeday bulshada Soomaalida hanka ummadda oo mar kale dib u noolaaday iyo waxaan sidoo kale ka hadli doonaa arrimo kale oo muhiim ah oo aan isleenahay waxay gali doonaan taariikhda Soomaalida waxaan soo qaadi doonaa jabintii darbi beeleedkii la kala dhaxdhigay magaalada Gaalkacyo oo dadka magaalada Gaalkacyo ku nool ay gacmahooda ku xaaqeen niyad samida iyo wanaagii uu muujiyay wiilkii kamid ahaa dadkii banaanbaxa isugu soo baxay magaalada Jowhar ee bixiyay kelmadda noqotay farmaajo iigeeya waxaan soo qaadi doonaa sidoo kale saqiirkii aan ku tilmaamay hogaamiyaha qarniga ee kamid ahaa dadkii isugu soo baxay magaalada Garowe ee halkaasi ka jeediyay hadallo taariikhi ah oo aan isleeyahay maanta 60 jirka Soomaaliga ee nool kuma hadli karo umana hadli karo sidaasi oo kale halkan ka talin gabdho waxaan sheegayaa caawa kugu daadsan tahay waxa kale oo aan in yar soo qaadi doonaa fikradii sumaysnayd ee halista ahayd ee hay'adii cilmi baarista u qaabilsanayd Itoobiya ay sheegtay xilligii doorashada taasi oo ahayd mid lagu kala qaybinayay shacabka Soomaalida laakiin Ilaahay uu ka badbaadiyay qodobadaasi ayaan soo qaadi doonaa waa Yaan Xuseen Cabdi oo idin leh ku soo dhawaada xanoolaato Soomaaliya dhamaanteen wardulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdee Soomaaliya dhamaanteen wardulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdee waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhalinteedii talilayd iyada isdhamaysay dhaxalkeedii maandeeq cadaawaha dhitaystay inaguna dhammaanteen dhajigiyo laboodkeen dhulka aynu leenahay dhab aynu haddaba saaxiibayaal haddii aan ku horeyno doorashadii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay abuurtay kalsooni cusub oo aan dadka Soomaalida muddo dheer aysan helin waxay abuurtay isdhexgal xagga bulshada ah iyo sidoo kale hankii qowminimada iyo ummadnimada iyo qarannimada Soomaalida oo mar kale iftiin u soo baxay waxaana marqaati ka ah isku soo baxyadii ballaarnaa ee dadku isugu soo baxeen ee muujinayay sida ay raalli uga yihiin go'aanka ay gaareen baarlamaanka Soomaaliya ay ku doorteen madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota waxyaabaha kale ee xusuusta mudan waxa kamid ah isdhexgalkii shacabka iyo askarta ku nool magaalada Muqdisho oo aan arkaynay dadweyne fuulaya gaadiidka ay ciidamadu wataan iyo sidoo kale waxa la yaab noqotay in la arkayay dadweyne la cuntaynaya ciidamo inta xeryahoodii loogu tagay arrintaasi oo aan ognahay in dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeysay ay adkayd in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo magaalada Gaalkacyo haddaan eegnana waxa isdhex maray dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo aan ognahay inay isku yihiin wiil iyo abti oo ah dad wada dhashay oo muddo dheer halkaasi ku wada noolaa laakiin xaaladihii jiray ee dalka ka dhacay darteedna ay sababtay in looga faa'iideysto in dad siyaasiyiin ay kala qaybiyaan shacabkaasi oo aan sinaba ku kala qaybsami karin dadweynaha magaalada Gaalkacyo ayaa la arkayay iyaga oo gacmahooda ku xaqaya darbigii siyaasadeed ee la dhaxdhigay isla markaana doonaya in ay dib u midoobaan oo ay hankoodii ummadnimo soo ceshadaan magaalada Gaalkacyo oo taariikhda Soomaalida marka laga hadlo saldhig u ah fakarka gobonnimo doonka iyo sidoo kale halgamayaashii taariikhda ka galay Soomaaliya oo aan ka xusi karno inay halkaasi ka soo jeedaan marka laga hadlo Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa ninkii hal abuuray calanka ummadda Soomaalidu ay maanta harsanayso iyo sidoo kale Muuriyo oo weli nool oo aan filayo inuu weli ku nool yahay magaalada Gaalkacyo oo aad u ah isla markaana ahaa ninkii qaatay ama lagu duray arbadii talaalka ahayd ee lagu talaali lahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud markii uu ka qayb galayay shirkii qaramada midoobe ee halkaas uu ka sheegayay hanka ummadda Soomaalidu ay doonayso inay dowladnimo ku hesho Muuriyo wuxuu ahaa nin u bareeray in uu u dhinto ummadda Soomaaliyeed darteed waxa kale oo haddaan eegno magaalada Jowhar kamid ahaa waxyaabaha taariikhda galay Cabdullaahi Maxamed Cusmaan oo ku magac dheeraa Daanyeerow ama ku magac dheer Daanyeerow waxa uu kamid ahaa dadkii isku soo baxay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi uu isaga oo aan waliba shaar wadan aan u malaynayo malaha isagoo gurigiisa jooga in la sheegay ama loo sheegay in Farmaajo uu guuleystay ama isagoo daawanaya markii guushu ay dhacdayba uu ku soo baxay isagoo wata garan yar oo ah garan fiino
waxa uu ka qayb galay isku soo baxa isaga oo ku hadaaqayay ama yiri halqabsiga caan baxay ee noqday in ummadda Soomaalidu maanta ay aad u isticmaalaan oo ah Farmaajo iyo Geeya dadka reer Jowhar oo ah dad taariikhda marka laga hadlo aad u macaan isla markaana ilbax ah waxa iyagoo aan isdhibin ciyaalkii mudaharaad ka qayb galay dadweynaha kale ay lahaayeen waa lagu geynaa magaalada Garowe waxyaabaha xusuusta leh waxa kamid ah wiil yar oo aan ku tilmaami karo inuu yahay hogaamiyihii qarniga oo sida uu hadlay cajiib ay ahayd marka la eego maanta xaaladda Soomaalidu ay ku jirto wiilkaasi yar oo ay muujinayso in ay jiraan wali waalid Soomaaliyeed oo barbaarin kara ubadka mustaqbalka hogaamin kara ummadda iyo qowmiyadda Soomaalida iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed wiilkaasi yar oo aan ka xumahay inaan magaciisa garanaynin waxa uu kamid ahaa dad isugu soo baxay magaalada Garowe waxaanu halkaasi ka yiri hadallo taariikhi ah oo aad iyo aad cajiib u ahaa oo gaar ahaan aniga dareen ugu abuuray mana filaynin in ciyaalkeena hadda koraya ay ku jiri karaan dad noocaas u fakaraya bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa doorashada maanta ka dhacday Muqdisho oo ahayd mid taliya laaba waxaanay saameyn warqad iyo qalin aan ku xisaabinayay codadka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walaahi runtii isma ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codad xildhibaaneed buu soo baxayaa laakiin waa islaa wuxuu ku soo baxayaa cod shacab alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan waxaan ka cadaynay inaanay Itoobiya halkan ka talin gabdho waxaan u sheegayaa caawa kugu daadsan tahay meeshaas ka qaad sidoo kale ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu sheegayaa gacan qabta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ugu mahadcelinayaa hambalyadii ugu horeysay caawa u dira weeye sidii xilka u wareejiyey ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya noolaato ummadda Soomaaliyeed isku timaado qalbigooda ducada Allah isku mariyo wiilka yarka waxyaabaha kale oo ka hadlay waxa kamid ah inuu u jeediyay madaxweynaha dardaaran iyo talo uu kaga hadlayay in dib loo dhiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana madaxweynuhu uu daryeelo ciidamada si ay u ilaaliyaan qaranka iyo qowmiyadda waxaan leeyahay Farmaajo 4 sano iyo ka badan baan ku soo dooordaynay caawa xarig miiskaan hoos kaaga xariiqnay waa inaa waxaad noo haysay soo bandhig caawa waxaa muhiim ah وأنا أحكي هذا مركي عبد محمد الله فرماجو خو مغرفون كلا وريوي واحد قلت له من سراكيش إمام صوماليا تقول الرئيسة وسوق تري لها أمد صوماليا قول أمد صوماليا تقول أنا نبض رواقه مش بس waa tahay intaasi haddaan ku dhaafno hogaamiyihii yaraa ee ku noolaa magaalada Garowe ee kamid ahaa dadkii isku soo baxay magaalada Garowe waxaa si gaar ah soo jiitay inuu yahay nin yar oo saqiir ah oo aan qaangaar ahayn laakiin garashadiisu ay tahay mid Ilaahay looga mahadiyo in caruur noocaas oo kala ay kamid yihiin caruurta ay barbaarinayaan waalidiin badan oo Soomaaliyeed waxa kale oo aan ku soo gabagabaynayaa aragtidii sumaysnayd ee aan ku tilmaamay inay ahayd arrin loogu talagalay in lagu sumeeyo garashada iyo caqliga Soomaalida maanta oo muddo 25 sano ku kala qaybsanaa waxyaabo aan loo baahnayn oo la xiriira qabaliyada fikradii sumaysnayd ee ay qortay hay'ad u qaabilsan cilmi baarista Itoobiya oo ay ku sheegtay inay adag tahay in magaalada Muqdisho lagu doorto nin ka soo jeeda qabiilka daaroodka ee qowmiyadda Soomaalida taasi oo ay ku tilmaamayeen in qabiilka hawiyaha ee qowmiyadda Soomaalida kamidka ah kaliya ay tahay in la doorto waxaana taasi ay ku tusinaysaa inay ahayd fikrad sumaysan oo ay dadka Soomaalidu ka jawaabeen inaysan aqbalaynin fakarka noocaas oo kala ah ee ka muuqato cadaawadda iyo kala qaybinta bulshada Soomaalida oo ku salaysan aragti guun ah oo la xiriirta in ummadda Soomaalidu weligeed ay ku noolaato cabsi iyo khilaaf dhexdeeda ah oo aysan is-aaminin inta ayaan khiyaaray ku soo gabagabaynaya tusmadii gaabnayd ee aan uga hadlaynay isbedeladii dalka ka dhacay iyo hankii ummadda oo mar kale dib u soo noolaaday waayaan la Xuseen Cabdi oo intaynu mar kale kulmi doono idin leh sidaa iyo nabadgelyo Soomaalida Ilaahay ha nooleeyo Somali dhammaanteen wadda wuxuu dhisnaadaa calan dhidibkaasa marka duuni qaatiyo cadowla iska dhiciyey dhacadiin mijirsaday hurdaduma dhegaaye dhaqsadoo ka kacado dhexda marada ku xirto dhibaatadii xasuusato wayna sugayaan dhacadiin mijirsaday hurdaduma dhegaaye dhaqsadoo ka kacado dhexda marada ku xirto dhibaatadii xasuusato
ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo mahadsanid